kusoo dhawaada maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay familiga iyo ardada inta ku filan dalkan Turkiga bishii inta ku noolaan karaan. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. asxaabta islaamiga waa saxiibkiin ma hono ilaa isku soo noqdo wanaagsan iyo muuqaal cusub. sida ay sheegay muuqaalka hore ka balan qaaday waxaan ka hadli rabaa waxaan ku dhahay waxaan ka soo hadli doonaa muuqaal ku saabsan lacagta ku filan ama qiimaha bishii ku filan familiga ama ardada labadaba qiimaha ku filan ka soo hadla macnaha ay ka balan qaaday marka maanta ka hadli doonaa kusoo dhawaada maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay familiga iyo ardada inta ku filan dalkan Turkiga bishii inta ku noolaan karaan marka waxaan rajaynaynaa wax badan ka faa'iido doontiin intaan muuqaalku gudo galin ay xasuusiyo hadaa channelka wali aad subscribe aadan saarin hadiftan ku soo biiro subscribe sar gambalelkana furoosti macnaha muuqaal walba soo gurno oo ku soo gaaro waxyaabo badan ka hadli doonaa oo dalkan ku saabsan okay wax warayay ku daalin aan muuqaalkeena hore u soo gudo galno waxa ku hormareynaa ardada maadaama ardada macnaha fududahay ardada ku hormarinaa familiga qaybta dambe u hadlaynaa sidaas xabadan ay naga soo codsadeen inaan ka soo hadalno marka waxa waaye markii arday aad tahay wadankan ay baatid laba option ku furan ama saddex option aan dhihi karnaa saddex option ku furan optionka koowaad waxa waaye inaad joogto aad degtid optionka labaadna waxa waaye inaad degtid guri caadi asxaab aad isla kireystiin optionka afraad ama saddexaadna waxa waaye in guri caadi aad degtid oo maxay too ama laba crane soo taqaaniib waa ka hadlay muuqaalka hore oo soo hadlay guriyaas laba crane ta inaad degtid saddexdaas option ku furan optionka koowaad oo jurtooyinka ka hadlayna jurtooyinka waxa waaye magaalooyinka Istanbul iyo Ankara iyo Izmir iyo magaalooyinka kale oo waaweyn iyo gobolada way kala duwan yihiin qiimahooda waxa ugu qiimo badan Istanbul iyo Ankara sidoo kale Izmirna waa la dhihi karaa magaalooyinka weyn ee soo galaysa laakiinse gobolada yurtooyinkooda zaid ay raqiis u yihiin marka yurtada waxa u baahan tahay badanaa yurtooyinku waxay bixiyaan quraac iyo casho quraacda waxa la cunaa 3 ama 3 saac subaxnimo ama 9 subaxnimo waxa laga yaabaa yurtooyinka qaar inay cunto bixi waayaan oo maxay too cuntada banaanka ka soo gaday ku dhahan balse haddii ku dhahan cuntada banaanka ka soo gado lacagta wax laga dhimi doonaa marka lacagta yurtada aad ku dagaysid badanaa waxay ku xiran tahay ama lagu fiirinayaa cuntada oo macnaha ama mealka ku leedahay yurtadaas marka yurtooyinka qaar waxa waaye adii ilaa 400 ilaa 500 u dhaxayaan haddii cuntadaada banaanka soo cunaysid haddii cuntada ku jirtana ilaa 600 ilaa 800 yurtooyinka ugu qaalisan oo magaalooyinka ku yaala waa $1 teelo oo lacagta Turkiga ah Turkish lira marka intaas ay u badan tahay yurtooyinka kuwa gobolada ku yaalan sidoo kale anaa soo degay gobol ka imaaday gobolada yurtooyinkooda waa raqiis quraac iyo cashay bixiyaan waxaana laga qaadayaa 600 teelo oo Turkish lira ah 600 liro marka haddii aad heshiis badan saxiixaysid 600 way haddii aad heshiis saxiixin badan yurtooyinka heshiis ka saxiixan heshiis hadii laga saxiixo lacag yar macnaha ku dhigaysa markii aan warka ku sii daalinin yurtooyinka saas u kala baxaan magaalooyinka iyo goboladana way kala qaalisan yihiin yurtooyinkooda waana kaasa yurtada waa option furan waxyaabay macluumaad yurtada u baahantiin website-ka qaybta dambe muuqaalka ay soo dhigi doonaa ama linkiga description-ka ay soo gelin website-ka information ka heli kartiin qodobka labaad oo gudub qodobka labaad waxa waaye inaad degtid guri caadi ah asxaab ina la kireysatid oo arday hadaa tahay marka wadanka imaatid asxaab 4 qof oo kale oo arday ina guri la kireysatid ama 5 qof oo kale kadib lacagta guriga soo baxda bishaas asla qaybsatiin gurigaasna adika mas'uulka ahaatiin cuntadana isku darsatiin koronto iyo gas iyo wixii soo baxaan dhan awada qaybsatiin kirada guriga awada qaybsatiin saasna u noolaan kartiin option kale oo ku furan hadaa arday tahay waxa waaye in guriyaha laba kireynta aad degtid oo tusaalahaan waxa jiro dad Soomaaliya oo ama ajaanib kale taa guri intay kireystaan kadibna sariir u sii kala kireeyo marka sariirta ay ka sii kireynayaan waxa laga yaabaa inay $100 ka kireeyaan meesha ugu hooseyso $100 oo maleynaa ilaa $80 waxaana ugu badan ilaa 120 markii Istanbul loo fiiriyo iyo magaalooyinka kale oo weyn Ankara kale waxa laga yaabaa markii ay gurigaas laga kireeyo in waxaan laga rabin oo macnaha qolkaas $100 ku jirto $100 ama $150 inta laga kireeyo waxa ku jirto lacagtii gaaska internetka korontada biyaha wixii dhamaay isticmaalaysa ku jiro kaliya waxa banaanka soo gadanaysa ama asxaabta guriga degan isla qaybsan kartiin cuntada ama raashinka
raashinkaada gooni oo karsanaya laakiin inta kale laga marabo optionka saddexaad oo ardadana waa kaasa saddexdaas option ku furan haddii arday tahay marka wadanka imaatid haddii aad guud ahaan ugu hadalno ardayga inta ku filan bishii oo kaleeto waxay noqon kartaa macnaha inkastoo magaalooyinka iyo gobolada ay kala duwan yihiin haddii aad arday tahay oo yurta aad degan tahay waxaa laga yaabaa bishii in $150 NF ay kugu noqoto sidoo kale haddaad asxaab guriga degan tahay $150 in aydan kugu filan tahay waa laga yaabaa gobol hadday tahayna $150 NF ay tahay way kaasoo kala haraysaa marka waxaan dhihi karnaa qofka ardayga oo macnaha waxyaabo kale aan qabanaynin oo arday jaamacadiisa ka dhiganayo bishii $150 NF ay ku tahay family hadii guri ay kireysanayaan waxa laga yaabaa guriyaha la kireysanayo waxa laga yaabaa $150 ilaa $200 u dhaxeeyaan wixii ka sii badan guriga waxa badan la fiiriyaa meesha uu ku yaalo istiraatiiji inay tahay in macnaha meel magaalada ka baxsan ay tahay the more guriga u dhow yahay meel magaalada u dhow waa lacagtiisa inay badan tahay macnaha marka hadii aad guri kireysatid tusaalahan $150 guri kireysatid ama ilaa $200 lacag u dhaxeyso marka waxa laga yaabaa markii guriga kiradiisa ay meel kaaga baxdo in macnaha ay soo baxaan lacagii ku noolaa lahayd macnaha lacagtii aad bishii ku noolaa lahayd in ayadana waxay kaaga baahan tahay inaad xisaabisid tusaalahan gas iyo koronto iyo waxa laga rabaa tusaalahan biyo iyo lacagtii caadiga oo raashinka aad ku noolaa lahaydeen adiga family-ga macnaha ku wada noolaa lahaydeen marka taas waxa laga yaabaa adi $200 ilaa $150 ilaa $200 in bishii ay kugu filnaan karto haddii aad guri gadatidna ayadana way ka duwan tahay oo waa macnaha waxa meesha ka bixaysa lacagta kirada oo gurigaada iska leh wax laga kirina malaha markaas waxa u baahan tahay wixii lacagtii caadiga oo macnaha guriga wixii ka soo bixi lahay gas ama koronto iyo wixii noqon lahaydbo iyo lacagtii aad ku noolaa lahayd labadaas u baahan tahay marka taas ayadana haddaa xisaabino waxay noqon kartaa waxa laga yaabaa $100 inay guriga waxaabay soo baxay ay noqoto $100 raashin ka dhigatiin adi $200 hadana markaasna kugu filan karto ama ilaa $150 iska dhig marka meeshaas kaliya waxa ka bixayso lacagta kirada guriga marka sida hor usoo sheegnana waxay ku kala duwan tahay meesha guriga ka helaysid iyo magaalo ay tahay in gobolka badanaa gobolada family badanaa ma degaan laakiin inkastoo gobolada qaar ay family jiraan oo macnaha family ay degaan meeshaas raqiis waayo gobolada laakiin magaalooyinka weyn Istanbul iyo Ankara kaleeto guryaha waxa laga yaabaa inay qaali noqdaan zaid qaali uma sii aha wadankan Turkiga sida ogtiin wadamada kaleeto markii loo fiiriyo guryaha raqiis ka yihiin waxyaabaha raqiiska ku jiraan guryaha iyo maxallaha cuntada marka waxa rajeynaa in macnaha muuqaalka wax badan ay ka faa'iideen intaas aan rabay in ay la wadaago haddii aad kanaalka wali kusoo biiro subscribe saar gambalaalkan furo insha Allah muuqaalka dambe waxa ugu hadli doonaa waxyaabaha wadankan oo qaaliga ku yahay si aad sii ogaatid oo macnaha aad sii taxadirtid insha Allah inta muuqaalka xiga ku kulmi doono dhamaantii waxay tagayaa sidaas iyo nabadgelyo